sheekada markay heerkaas marayso sawirka qof muslim in lasoo qaado calaamada kirishtaanka lagu dul rakibo edit lagu sameeyo ee qofkaas la gaalaysiiyo diinta laga riixo heerkaas markay marayso maxa kugu soo dhaco ani waxa ugu soo dhaco khawaariijta iyo dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay culummo fara badan oo caan ah oo soomaaliya laga yaqaano masaajidada loogu galay la dilay maanta naga hooseeya ayaa jiro dad shacib ah oo masaakiin ah oo loo dilay ayagana gaalaa tihiin soomaaliya gudaheeda naguma cusbo boqolaal casesaa jiro sidoo kale dad siyaasiyiina ayagana oo loo dilay gaalaa tihiin soomaaliya gudaheeda madaxa laga toogtay masaajidada loogu galay ama jidka lagu qabtay ama adiga wax un lagu sameeyey soomaaliya nahay waa is ognaa waa is naqaanaa marka diinta in la iska kala xigsado dadna la riixo oo laga saaro dad la gaalaysiiyo iyo sheekadaas horta naguma cusbo laakiin midaa nagu cusub midda nagu cusubaa waxay tahay aniga waxaa ku naqaanay barnaamijkan khawaarijta diinta la iska saaro soomaaliya keliya inay ka jiri jirta dibadday nala soo gashay qurbihii nala soo gashay sidaa u jeedaan sawirkayga aa la wadwadaa calaamadda waxay soo saareen kirishtaanta ah dadka sameeyey waa taqaaniin waa dadkii maalmahan oo dhan rabay Somali Cowboy in qadka laga saaro TikTok markuu xirmi waayey oo idinka ay ii istaagteen aad sheeko waxaa bilaabatay in la isgaalaysiiyo ilaan waxay u malayaan fiiri dadkan aniga hadda dalal waxaa joognaa inta guriga imaadaan iguma dili karaan meeshaan qoryaa yaalo nidaamaa jiro kaamirooyina ku rakiban marka sidii Soomaaliya oo kale inta imaadaan iskamkaa dili karaan dadkan laakiin ogow exactly mabda'yadaasay wadaan adiga haddaan ayaga oo kale u fikiraynin caqliga ayaga ay wadaan oo kale aad yani qaabka dhammaan haddaadan u dhaqmaynin aniga maanta waxbaa idin sheegaya aniga soomaalida maraykanka qabna waa isqabana horta hal tusaale aa idin soo qaadanaya maqaal waxaa jiro ninkan uu wareejiyey maqaalkaas wuxuu rabay inuu ka gado soomaalida aanan ingiriiska fahmin ingiriiska aqrinin ayuu rabay inuu ka gado laakiin waa ku qaraxday maqaalka waa kana maqaalka ciwaankiisa waa ciid mubaarak yaa qoray anigaa qoray maqaalkan goormee qoray bishii abriil 10keeda 2024 maqaalkan waxaa ila soo xiriiray joornaalka ugu weyn adiga gobolka aniga aad deganaa ka soo baxo way ila soo xiriireen waxay dhaheen ciidaa soo dhow qof waxaa raadinaynaa ciidda nooga sheekeeyo oo dadka joornaalka akhristo yani ooga sheekeeyo u faahfaahiyo ciidda waxay tahay iyo waxaa samaysiin iyo qaabkaa u cuntiin iyo qaabkaa u ciidiin iyo waxaas maadaama ani qoraa ahay waa fariistay qalinkii iyo buuggii ayaan isdul saartay maqaalka fiiriya marka dadkiina afkii ingiriiska fahmaayo maqaalkan aqriya maqaalka waxaa ku qoran waxaan sharxayaa qaxwada dhadhankeeda iyo maxaa dhihi jiray iyo qadada maalinkaas oo ramadaanka markuu dhammaado ciidda lagu jiro baashaalka ciidda waxaa ka sheekeeya ciida fitriga waa saa ujeedaan waxaa ka sheekeynayaa dabaaldega waxyaabaha weliba muxuu ahaa ilan dadka aan la hadlayo mogtahay ma ahan dad muslimiin uma badno waxa maqaalka akrinaya waxaa u badan dad aanan ciidda iyo ramadaanka iyo waxaas ayaga aanan practice gareyna u badan marka waxyaabaha ay sheegaya waxaa kamid ah saa ujeedaan waxaan kusoo koray soomaaliya habeenkii ciidda ay soo gelaysaa leeyahay tusaale ahaan oo weliba oo ah ramadaanka maalinka habeenka ugu dambeeya ramadaanka farxadda iyo reenreenta magaalada waa laga dareemi karaa iyadoo weliba magaalada aan kusoo koray ee muqdisho ee wada mugdi ahayd oo yani waana run waagaas faanuusa la isticmaalaya aniga waagaa yareerana ciideyni marka waa ciyaaraha ciyaarena waxaa kamid ah dhuumishow ayaa meesha ku qoran nimayo yaabka dhegeysi idig marka guriga waxaa leeyahay guriga markaa kusoo laabano habeenkii dhan aa soo ciyaarano habeenkii ciidda guriga carafta buskudka la dubaayo iyo xalwadii iyo wixii meesha dhan kasoo carfaayo marka maraykanka dib uu soo laabanayaa aan ka sheekeynaa waxaa leeyahay maraykanka dadka muslimiinta ah waa isku imaanaa tusaale ahaan dadka hadda north carolina degan dorton arena meelay dhahan iskugu imaadaan metlife stadium new jersey portland maine meel waxaa jirto fitzpatrick ee dhahaan oo ayagana asagana garoon ah adiga marka waxaa ka sheekeynayaa qaabka u ciidno qaabka loo dabaaldego iyo maxaa la dhihi jiray ugu dambeyn inaan leeyahay qofka hadduusan muslim ahayn ama gaal uu yahay waa imaan kartaa oo dadka muslimiinta oo isu dhexgeli kartaa oo ciid mubaarak waa dhihi kartaa ayaa maqaalkaas ku qoran marka
sidoo kale cuntada bariiska ariga hilibka ariga hilibka idaha iyo waxyaabahaas ada meesha ku qoran idinka akhriya iyo qaabka looga dabaaldego dubai iyo habeenkii nalalka iftiinka dabaaldega jiddo iyo jakarta iyo dooxa aad tusaalahaan soo qaadanaa ninka marka wuxuu ka gaday dadka aan waxba akhrinin waxna qorin wuxuu ka gaday maqaalkaas oo aniga aan qoray inuu yahay maqaal aanan waxa hadda aan idin sheegay aan ka hadlaynin idinka marka waxaa idinka codsanayaa cabdi eftin iid mubaarak google gareye sidoo kale waxyaabaha kale ee aadka uga hadlo maqaalada markaa qoro waxaa ka mid ah dhaqamada calanka aniga u taqaanin qadiid iyo waxyaabahaas iyo sidoo kale ramadaanka markii la galo ramadaan walbo markuu bilowdo maqaal dheer ayaan u qoraa idinka google gareye marka walaalayaalow khawaarijta sheekadii ay wadeen diinta in la iska bixiyo la iska riixo oo ayaga isla haysiiyaan sheekadaas oo anaga aan nagu cusbeen soomaaliya markaan joogno ayaa horta qurbihii nala soo gashay haddaad dadkan ka cod dheeraatid ka aqoon badisid aad la dagaalantid aadan ka amar qaadanin oo maxaa la dhihi jiray adiga qof iskiis u dagaalamaya aad tahay ilaahay amarkiis saasay sameeyaan marka ninkan dadka ku xiran horta ma aqaano waxay dadka yihiin ma aqaano dad wax aqriyo dad wax fahmo inay waxay yihiin ma aqaano laakiin qofkan truck driverka soomaaliyay waxaa idin leeyahay wixii laydii soo bandhigo evidenceska idinka bal raadsada gooni u raadsada then judge yourself intaas ayaan rabay inaan idinla sheergareeyo